wafdigii ballaadhnay uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane cali maxamed waraan cadde ayaa maanta waxay gudagaleen qaybtii labaad ee nabadaynta beelaha walaalaha ee wadadega gobolada bariga Somaliland. kulan ballaadhan oo ay soo qabanqaabiyeen dadka deegaankaasi wadadega iyo wafdiga uu horkacaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ayaa si nabdoon waxa uu uga dhacay deegaanka la yiraahdo Chidimbool oo ka tirsan gobolka Saraar. ergooyinka ka kala yimid deegaanada la isku haystay ayaa waxa iska soo xileen 25 xubnood oo loo dhaarinayo inay nabadda adkeeyaan isla markaana noqdaan dad walaalo oo ka qayb qaata horumarka dalkooda. munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay garaado, salaadiin, cuqaal iyo marti sharaf kale oo isugu jira golaha wasiirada, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda, wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada, wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guryeynta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, iyo barasaabka gobolka Saraar iyo saraakiil sarsare oo uu ka mid yahay taliyaha guud ee ciidamada booliska Somaliland. kadib markii kulamo kala duwan ay yeesheen cuqaasha iyo waxgaradka ee beelaha halkaasi wadadega waxaa la gudagalay dhaarta la isu dhaarinayo in la adkeeyo oo daacad laga noqdo nabadgelyada deegaankaasi. wafdiga uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane cali maxamed waraan cadde ayaa warbixino soo dhaweyna munaasabaddan la isla qaatay ka dhageystay xubnaha iska soo xuleen ergeyda labada dhinac ee rukun dhaxaadka looga dhigayo in nabad waarta deegaankaasi laga helo. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane cali maxamed waraan cadde ayaa khudbad halkaasi uu ka jeediyey waxa uu kaga warramay muhiimadda ay nabadgelyadu u leedahay dadka deegaanka wadadega iyo dhulka Somaliland, isagoo sheegay in la islaab xaadho oo si walaaltinimo loo wada shaqeeyo isla markaana laga dhabeeyo dhaarta. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinayo ayaa geedka ay uga hadlay wuxuu ka waraarintii waxa ku dhaartii baan wadnaa waana dhamaanaysaa insha Allah biidnillaahi kariim. waxaad ku tiraahdaa labada beerood waan idin soo ducaynayaa salaan iga gaarsiin wuuli iyo ilaahay naabuurtay ee caqligayna siiyey ee nagu hanuuniyey dhibkii shalay dhacay inaynu garanay inuu yahay wax diinta iyo dalka iyo dadka iyo aakhiradeennaba ku xun ee maanta halkan aynu ka marray kitaabka inaynaan dib ugu kicin wixii ku kacanaynu gees ugu. culimaadudiin iyaguna goobtan ka soo qayb galay ayaa waxa ay si qoto dheer uga warrameen dhiigga islaamka ee xaqdarro lagu daadiyo dhibaatada uu leeyahay, isagoo sheegay inay muhiim tahay in dhaarta laga dhabeeyo oo laga foojignaado wax kastoo wiiqaya walaaltinimada iyo wada noolaanshaha dadka muslimiinta iyo dadka walaalaha ee deegaanka wada degan. munaasabaddan oo ay ka soo qayb galeen garaado, salaadiin, aqoon-yahano iyo mas-uuliyiin ka tirsan mas-uuliyiinta qaranka, kuwaasoo ay isugu jiray wasiiro iyo taliyaha ciidamada booliska. taliyaha ciidanka qaranka ayaa iyaguna halkaasi waxa ay ka jeediyeen khudbado kala duwan oo taariikhi ah oo ay kaga hadlayaan faa'iidada nabadgelyadu ay u leedahay dadka walaalaha halkan wada dega. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaan intii hawshaa ka soo shaqaysay, intii ka soo qayb gashay. waxaan ilaahay subxaana watacaala uga rajaynayaa kontonkaa oday halkaa ku dhaartay ee niyadsamada iyo wanaaggu ka muuqday in ilaahay subxaana watacaala niyadooda saalaxa u rumeeyo, iyagana ajir iyo xasanaad uu ka siiyo arrintaa iyada ah. dhammaanna aynu kula shaqayno inteena kale, ama ha noqoto labadii beelood ha noqoto, ama odayaashii kale soo gurmay ha noqoto, ama madaxda dowladda ha noqoto. waxaan halkan yar uga mahadnayaa ciidamadii runtii markii yaaca uu dhacay arrintaa iyada ah dhex galay ee u guntaday ee u gurmaday, iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno isugu jira salaadiin iyo garaado ka warramay in mar walba la ilaaliyo nabadgelyada oo si nabdoon oo walaalnimo ku dheehan tahay loo wada noolaado. hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cali maxamed waraan cadde ee muddada 5 maalmood u joogay shaqaaqada ka dhacday ee deegaanada gobolada bariga
ayaa waxaa halkaasi lagu soo gunaanaday in lagu yagleelo lagu xidho nabadda deegaanadan iyadoo halkaana lagu dhaariyey 25 ergo ka kala socda labada ardaa ee xurgufta dhex martay waa Cabdi Almis iyo Samataryare deegaanka Jidhaambuur ee gobolka Saraar ka tirsan.